السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن كلو حساب بدن ومقالكي عافيمادكي علم نفسيga muuqaalkan waxaan doonayaa inaan uga hadalno mowduuc aad muhiim ah horena aan uga soo hadalnay qeyra garaadka الذكاء العاطفي ama emotional intelligence. mowduuc aad muhiim u ah saameyn ku leh shakhsiyadda qofka, dabeecadihiisa, sidoo kale saameyn ku yeelanaysa horumarkiisa inuu dadka ka dhex muuqdo, caafimaadkiisa maanka ama maskaxda iyo caafimaadka jirka iyo xiriirada uu dadka la leeyahay iyo sida uu mujtamaca uga soo dhex muuqanayo saameyn ku leh. aad bay muhiim tahay qofka inuu qeyra garaadkiisa uu fahmo qeyra garaadku wuxuu yahay, haddii uu ku fiican yahayna uu sii horumariyo, haddii uu ku liitana uu isku dayo inuu ka shaqeeyo siduu qeyra garaadkiisa mar walba u hagaajin lahaa. garaadka marka laga hadlayo ama caqliga waxa la yiraahdo sanadihii hore waxaa la daraasan jiray oo la ogaa waxaa la qiimeyn jiray un IQ-ga qofka waxbarashada ma ku fiican yahay, ilmahan koritaankiisa yacni ayaa unba la qiimeyn jiray. laakiin sanadihii dambe markii ay cilmiga psychology uu adduunka kusoo kordhay oo la bartay shakhsiyaadka iyo dadka si u fakerayaan, sida ay macnaha qofna uu u horumarayo, wax fiican u keenayo, dadkii uga dhex muuqanayo, qofna uu hagaas u noqonayo, bulshadii uu ku noqonayo qof culus oo bulshada ku dhex culus ay ku adkaanayso noloshii. waxaa la daraasiyey oo la ogaaday inay tahay qeyra garaadka arrin aad muhiim u ah oo saameyn ku leh arrimahaas oo dhan. haddaba marka la qeexayo qeyra garaadka waxaa la yiraahdaa waa qofka inuu awood u leeyahay inuu fahmi karo dareemayaashiisa ama mashaacirtiisa. mashaacirtaas ha noqoto mid inuu dareemi karo inuu yahay jacayl, nacayb, murugo, farxad, caro, waxaas oo dhan oo macnaha uu dareemi karo. marka uu dareemona sidoo kale dadka kale uu la tacaamulayana inuu dareemi karo inay dareemayaashooda waxay dareemayaan, hadday murugo ku jiraan, hadday faraxsan yihiin, waa dad kale uu la tacaamulay. markuu intaa helo, tan labaad oo iyadana ku muhiimka ku xigta oo yacni qeexidda la socota waxaa weeye marka uu dareemo kadibna waa inuu awood u leeyahay inuu maamulo oo si hagaagsan u maamulo, taasoo marka dambe isaga ku soo celinaysa arrin saameyn ku yeelanaysa noloshiisa iyo xiriirkiisa iyo caafimaadkiisa saameyn ku yeelanaysa. guud ahaan haddaan dareemayaasha ka sheekeyno waqtiga ugu dheeraanaya, laakiin waxaan rabnaa tusaale inaan kasoo qaadano. mathalan carada oo kale, qofku wuu caroon karaa, dadkao dhan way caroodaan, laakiin waxaa lagu kala xeel dheer yahay oo dadka qeyra garaadkooda ku kala duwan yihiin. qofna caradiisa uu intuu fahmo ayuu awood u leeyahay inuu taxakumo oo uu ilaaliyo si isaga faa'iido u leh oo dhibaato isaga u keenin, dadka kale dhibaato u keenin inuu ku dhameeyo. qofna waxaa dhici karta inuu xargaha oo dhan goosto oo uu fahmi waayo waxaan dhibaatooyin badan uu kula kulmo, yacni ay ku keento murugo aad u fara badan caradii, kadibna uu dhibaatooyin ku dhaco, dad kale dhibaateeyo, qof kale xataa uu dilo. waxyaalahaas ayay keenaysa. marka qofkaas waxa waa qeyra garaadkiisa ayaa hooseeya oo mashaakil ayaa halkaa ka haysta. sidoo kale iyadana waxaa soo qaadan karnaa oo dhinac kale la xiriira marka mathalan laga hadlayo inaa fahantid dadka kale dareemayaashooda iyo waxay dareemayaan. qof maamulo meel ka ah ama shirkad ama meel guud loo dhiibay oo qeyra garaadkiisa uu hooseeyo oon dadka fahmi karin waxa ay yihiin dadka iyo siduu ula tacaamuli lahaa. mathalan qof uu maamul u yahay oo kale oo xanuunsaday, siduu ula dhaqmi lahaa, ula tafaaculi lahaa, ama qof waalidkiis uu dhintay sida uu u dareemi lahaa dareenkaas xanuunka badan, kadibna uu oran lahaa fasax baa tahay ama garabkaagaan nahay. haddii laakiin qofka qeyra garaadkiisa hooseeyo oo maamul yahay, waxaa dhici karta inuu halkaas qalad ka yimaado, kadibna halkaa isku dhac ka yimaado, ay dhici karto shirkadii ama maamulkii meeshu ka ahaa inay dhibaato kasoo gaarto, halkaasna isku dhac ka yimaado, sidaasna ay ku timaado ama isaga in shaqada laga ceeriyo ama shaqaalihii ay meesha ka tagaan. marka mar walba isaga culays ayuu bulshada ku yahay maadaama qeyra garaadkiisa hooseeyo. waxaan filayaa labada tusaale inay ku filan yihiin. dhammaan nolosha oo dhan macnaha waa ku fiiran kartaa, ama muruga ha noqoto, qof murugaysan ha noqdo qeyra garaadkiisa uu hooseeyo, iyo qof muruga soo martay oo qeyra garaadkiisu qof geeri la kulmay oo qeyra garaadkiisu uu hooseeyo, murugadaasna ay ku keento xanuuno badan si uga fikerayo macnaha noloshiisa uu ka dhacay, uu ka haray macnaha taas. iyo qof muruga la soo kulmay waalidkiis dhintay xanuun buu dareemayaa, kadibna marka dambe wuu taxakumayaa, awood buu u yeelanayaa siduu nolosha
ula sii falgeli lahaa u socon lahaa ay arrintaa saameyn ugu yeelaan arrintaa waxaan filayaa inaa wax ka fahanteen qodobkaas waxaa marka jira calaamada maalan waxa weeye inuu qofkii awood u yeesho inuu fahmo shakhsiyadiisa qofka shakhsiyadiisa inuu fahmo markuu fahmana inuu haddana xukumi karo waxaas uu fahmay murugaha noqoto farxadda noqoto wixii noqotaba aysan dhibaato isaga u keenin dadka kalena dhibaato u keenin inuu awood u leeyahay dadka kale inuu si fiican ula dhaqmi karo oo xiriirka dadka uu leeyahay in tahay mid good ah oo dadka ay feedback fiican ka soo bixiyaan inuu dadka caadifad iyo naxariis iyo dhawaansho la leeyahay taasna waxay keenaysaa inuu booming la jeclaado qofka faa'iidooyinka marka waxa weeye qofkaas wuxuu ku fiicnaanayaa dhammaan professionkiisa ama yacni shaqadiisa iyo waxbarashada maalan dhakhtar baa arkaysaa oo qof uu u tegaya qiiragaraadkiisu hooseeyo waxaa dhici karta inuu wax yar ku maago uu caayo oo bukaankiiba xanuunkii uu qabay isagoo xanuun kale ka soo qabo waa dhakhaatiir badan saasa arkaysa iyo dhakhtar qiiragaraadkiisu fiican yahay si fiican qofkii ula dhaqmo u naxariista garab yeelo marka labadaas qof way kala duwan yihiin laba dhakhtaroo kala duwan way midna khasaaraha waxaa keenay macnaha qof waxaa dhici karta inuu aqoontiisa fiican tahay laakiin qiiragaraadkiisa maadaama uu hooseeyo dadka si ula dhaqmayo ay aad u dhibsadaan waxaa kaloo iyadana muhiim ah waxa weeye qofkaas inuu caafimaadkiisa ku fiicnaanayo oo macnaha yani jirkiisa caafimaadkiisa maadaama uusan dhibaatooyin badan la kulmayo oo awood u leeyahay inuu taxakumo wax kastoo la soo gudboonaanaya sidoo kale nafsiyaadkiisa inuu yani awood u leeyahay nafsiyaadkiisa ay yihiin mar walba uu farxaddiisa ka talinayo awood u leeyahay qofka markuu qiirgaraadkiisa ku fiican yahay xiriirka uu bulshada la leeyahay aad buu u fiican yahay dadku aaday u jeclaanayaan sidoo kale waxaa aad u heersareeya dakaa ijtimaaci waxa la yirahdo inuu caqli garaadkii bulshada macnaha bulshada aad u jeclaanaysa qofkaas waxaa dhici karta laba qof oo isla dhasho oo walaalo ah midna inay bulshada aad u jecel yihiin sababtana waxa waaye inuu waxaan aan kasoo sheekano ayuu aad ugu fiican yahay qofna waxaa dhici karta inaan macnaha aad loo xiriirin ama lala soconin ama la ogeyn maadaama uu hooseeyo qiiragaraadkiisa ama guud ahaan caqligii garaadka dhinacaas ku saabsan waxaan rajaynayaa muuqaalka inuu ila daba dheeraaday intaas ayaan kusoo kufinayaa muuqaalka lamida intaan ku kulmi doono sidaas nabadgelyo waxaan isku dayi doonaa muuqaalo ka duwan oo kasii faahfaahsan oo mawduucan aan uga hadli doono inaan kaga sheekeyno asalaamu calaykum waraxmatullah